الله ونحرسته waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyootay fanaanada weyn Khadiija Cabdullaahi Dalees oo kamid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed oo kuwooda ugu magaca weyn fanka Soomaaliya. fanaanadan ayaa u geeriyootay xanuun la sheegay in muddooyinkan dambe uu hayay sida laga soo xigtay xubno kamid ah qoyskeeda. Khadiija Cabdullaahi Dalees waxa ay kamid ahayd fanaaniinta qurba joogta ka noqotay dalka kadib markii ay burburtay dawladii dhexe ee uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. الله ونحرسته فنانادن Khadiija Cabdullaahi Dalees oo mar wareysi siinaysa TV ku hadla afka Soomaaliga ayaa waxa ay ka hadashay sidii ay fanka Soomaaliya ay ku soo gashay. taariikhdeeda oo kooban iskuulkan dhiganayay maalmaha kamid oo khamiisa joornaalka Talyaaniga waxa lagu soo qoray Corriere dello Soomaaliya gabar heestal rabaa iskuulkan u heesi jiray miiskan garaaci jiray ciyaalkoo dhan baan dabadidi jiray markaan arkay imtixaankii markaan dhiibaan dhuuntay idaacadii baan tagay bishigaan Allah ku naxariiso Maxamed bishigaan baan u tagay iyo fiqburaale ayaan u tagay taagan albaabka idaacadoo dhan waxa ka shaqeynaya Maxamed Faarax Dhaashane Abduqaadir Fuushane Umar Xasan Qaraab muusikiisadana laba nin oo kaliya ahaan Xuseen Baajuun oo kamanka iyo Saciid Geeco markaan tagay waxay yiraahdeen maxaad rabtaa buu yiri bishigaan ina Cabdullaahi Axmed maxaad rabtaa Iswaa'il buu ahaa leegadii buu ahaa xafiiska la geeyay gaalkii baa loo yeeray waxa inaan heesaan rabaa sidii baan ku hees sidii baa heestii la iga qabtay aabahay baa telefoon loo diray waa markuu yimid wuxuu yiri muxuu ahaa gabadhaadii waa hees uu qosay ma Faaduma abuu ma yaa yiri waa Khadiija uu qosay wuxuu aabahay kubbalaaliya loo tagaa si loo wadooday 12 saac galabnimo la sii daayay heestayda aabahay aqbala. geeriyada fanaanada Khadiija Cabdullaahi Dalees oo ah doorka fanka Soomaaliya ayaa waxa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariisow oo la hadlay warqabadka raadiyoga Danan ee Muqdisho. waxaan taageerayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanka Khadiija Cabdullaahi Dalees oo ahayd fanaanad weyn kana dhex muuqatay gobolada bari waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan naga wada siiyo Allah u naxariisto dhammaanteena samir iyo iimaan Allah naga siiyo. geeriyo saakadii hore soo gaartay waxay ku noolayd muddada wadankaasi Canada marka halkaas ayayna ku geeriyootay marka sidoo kale injineer Cabdiraxmaan Yariisow wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in waxyaabo fara badan lagu xusuusan doono fanaanadan qiimaha iyo qaayaha ku dhaxal lahayd bulshada Soomaaliyeed. runtii wax badan kamid ah konton labadii inay ahayd gabadhii ugu horeysay oo heeska qaada raadiyo Muqdisho konton labadii kadibna bahda aad bay uga dhex muuqatay waana runtii waxay ka mid tahay dadkii ugu xasuusto wacyigelinta iyo fanka iyo suugaanta intaba marka waa qof magaca dheer ku leh bulshada dhexdeeda iyo sumcadda iyo karaamada. heesaha ay qaaday fanaanadan ee sida weyn loo xusuusto waxaa ka mid ah heesta bogaadinta ah ee shaqaalaha ee la magac baxday Muruqiina Maalo. Khadiija Cabdullaahi Dalees waxa ay ku dhalatay magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Baay sanadku markuu ahaa 1936. fanaanadan ayaa haatan waxa ay ku geeriyootay da'da 81 sano jir.